Soomaaliya. Rajada laga qabo in la isfahmo ayaad moodaa sidii hore in ay dhaanto. Hase ahaatee Puntland iyo Jubbaland ayaa shuruudo adag ku xiray. Puntland iyo Jubbaland ayaa ka soo horjeestay baaqa madaxweyne Farmaajo ee ah in mar kale dib la isugu soo laabto lana dhammaystiro heshiiskii 17 Sebtembar. Madaxweynaha ayaa la filayaa inuu hor yimaado kulanka golaha shacabka ee Sabtida. Golahaasi uu ku shiri doono hal aqal oo kaliya. Iyadoo isa soo tarayaan baaqyada loo jeedinayo dhinacyada iska soo horjeeda ayaa Puntland iyo Jubbaland ay ku xidhan shuruudo adag. Wasiirka warfaafinta ee Puntland Cabdulaahi Cali Xirsi Timacade ayaa sheegay in aysan ka qayb galaynin shirka uu madaxweyne Farmaajo ku baaqay. Waa siduu hadalka u dhigay. Dhanka Jubbaland, wasiirka warfaafinta Cabdulaahi Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo ka qayb galay barnaamijka dooda Jimcaha ee BBC mar su'aal la weydiiyay wuxuu yidhi maya kama qayb galayno horeyna noogama yeerin markii ugu dambeysay ee ay noo yeereenna waa taan diidnay mana u aqoonsanin madaxweyne waqtigiisuna wuu dhammaaday. Sidii looga soo qayb galayay ee beesha caalamka noogu wada yeedhay ha loo soo wada yimaado. Baaqyada isu soo taraya kale ee wararka ay nagu soo gaarayaan waxaa ka mid ah in kulan ay yeesheen musharaxiinta mucaaradka ay madaxweyne Farmaajo baaq u jeediyeen una sheegeen inay ku wareejiyaan inuu ku wareejiyo maamulka doorashada ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Maxamed Xuseen Rooble. Waa baaqa kaasina wuxuu ahaa baaqa ay direen mucaarad.